wasiirka wasaaradda umuuraha dibadda Somaliland Dr. Sacad Cali Shire ayaa xafiiskiisa ku qaabilay isla markaana kulan kula qaatay dhalinyaro u dhashay reer Somaliland oo degan wadanka Sacuudiga kana shaqeeya horumarka iyo sida ay qadiyadda Somaliland uga dhaadhicin lahaayeen wadamada caalamka waxaana calanka Somaliland ku soo bandhigeen munaasabada waaweyn oo ka dhacay cidhifyada caalamka sida wadanka Malaysia oo ay ka bilaabeen iyo wadamo kale waxaanay ku soo bandhigaan munaasabadaha waaweyn iyo hadba wadanka lagu qabanayo ciyaaraha waxa halkaasi ka hadlay Cumar Axmed Cumar oo ku hadlayay afka dhalinyaradan kana warbixiyay waxqabadkoodii iyo ujeedooyinka ku kalifay in ay dadaalkan sameeyaan magacayga Cumar Axmed Cumar Ismaaciil aad buu mahadsanyahay saacad Dr. Dr. Wasiirka Arimaha Dibada أنا كور قادني عالم كدولة دي سوماليلاند وكقادني فيستيفال أودي وينا وحنو ملاين إن شاء الله بإذن الله تعالى سنة دنبه أنا كان لينا تكلم إن شاء الله وسألوا إن شاء الله بإذن الله نقدم بيسو أنا مقع سومالي كور قادنو وإن شاء الله كفرحنا دل كير وفي شهر وحن بلابني 2015 كي وحن كبلابني دل كماليشيا وحن كحيك سيندنك سنغافور دل كسنغافور 2016 كي 2018 كينا وكان كبلابني دلك وانا كيد سوماني دلك روشكا ان شاء الله waxaan ku soconaa a lot of plans insha Allah sanadka dambe ka wixigaba targetkayga waxa weeyaan insha Allah in Somaliland gaadho global kan dadka ogaadaan adduunka oo dhan insha Allah bidnillah waxa ku soo bandhigay saaxiibka Yuusufa marka ciyaaraha waxaan bilaangayn ciyaaraha ugu muhiimsan baan bilaangaynaa ciyaarta ceremony-ga finalka iyo waxa ay meelaha weynta festivalka weyn insha Allah ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda umuuraha dibadda Somaliland Dr. Sacad Cali Shire ayaa asaguna dhalinyaradaasi uga mahad celiyay dadaalka ay sameeyeen isla markaana u soo jeediyay hambalyo iyo bogaadin kuna dhiirigeliyay sidii ay u sii wadi lahaayeen dadaalka ay sameeyeen waxa saakayeen ii farxada inaan ku soo dhaweeyo xafiiska dhalinyaro yaryar oo iska xil saaray in calanka Somaliland ay caalamka meel walba ay ka ridaan oo geeyaan aad iyo aad baan runtii aan uga mahad celinayaa waxaan ku dhiirigelinayaa dhalinyarada kale inay tusaalaha ay ku daydaan oo calankeena ku dadaalaan cid walba inay gaarsiiyaan waanu noqdo sida calanka si loo yaqaan calanka Mareykanka calanka Somaliland waa in loo barto aad baa mahadsantiin Ali Muhammad Jaamac Ali Fahad telefishinka Saab Hargeysa